السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي سوماليات إي ورما سيدتين الحمد لله إلهي بما هذا إسكالا مركلا أسوك يسوم عليي إذن كان سيداسي سكبضن يا إذن رجينا يا بريهن بيسير أيام وضران أن نقضي مركب لما بان مرتقانا لهان إن شاء الله نويقان أن وحمد سوق لني بما شاء الله تبارك الله ما أنت وحا إذن وذا قصو إن شاء الله oo gabar walaal mataqaanaa ay ku dhacday hada ilaahay yiraah qasidaas marka ila dhageysto han iga iloobin qasidaasayto marka dhageysatid like iga iloobin iyo mataqaanaa subscribe ka insha Allah khayr badan Allah ku siiyo insha Allah ilaahay dano wada dab dhaaf dhamaanteen qof walba wuxuu jecel yahay oo jannada ugu horeysa Allah siiyo ilaahay noo wada fududeeyo adduunyo aqraba badweyn baan soconaa ilaahay badweydaan mataqaanaa hanoo wada fududay dhammaanteenba ilaahay ilmaha baaryaal hanoo wada dhiga dhammaan gabar walba waxay jeceshahay ilaahay oo jannada ugu horeysa ilaahay ha siiyo aamiin daha aamiin rabbil caalamiin ilaahay inaga aqbal ducada sometimes waxa waaye waxaa furan samada mataqaanaa ina aqbaltu ilaahay dhaha dhici karta marka insha Allah aamiin la iska qof duceyna hadaad aragtid adna waxa rabtid niyada ku qabsa aamiin insha Allah inta sidaan ugu baxna ducada gabadhaanayto ma aha gabar Soomaali ma aha laakiin waa gabar muslim islaam ah qasadan ku dhacday gabadhaan waxay tiray wadan waxay ku dhalatay ayada gaalnimo ku dhalatay familkooda iyo waxooda gaalnimo ay ku dhalatay laakiin ada markay jirtay 22 years meelahaas ay soo islaamtay markay soo islaamtay iyadoo islaamnimadii ku jirto ayay waxay isbarteen wiil kale oo asagan islaam ah bay isbarteen markay isbarteen wiilkii baa marka sii baray diintii wiilkii bay isguursadeen oo ilaahay calaf iskugu daray diintii moor ayay u macaatay marka waxay go'aansatay marka ilmo ay u dhashay marka couple ilmo ay u dhashay gabadhan waxay joogtaa UK marka UK ahayd marka waxay dhahday markaan couple dhalay baa waxaan ku go'aansanay tir in aan aadna wadanka Egypt inaan aado oo diintana aan si fiican mataqaan aan ugu soo barto because diintii rabtay inay aad u soo barato wadankii bay tagtay Egypt insha Allah diinteedii bay baratay adig couple iyadoo haysatay hadana couple kale ugu sii darsamay adig ilmo waxay haysataa oo 5 cunug ah marka haysataa markaas marka waxay tiri nolol fiican ku nooleen bay tiri odaygii uu soo noqday bay tiri halkaas uu nagu biilayay tiri ilmihii iskoolkoodii anigana waxay tiri islaamigan galay tiri ana ay barta diintii anaga marka waxay tiri nolosheeni yaani ما شاء الله تبارك الله waxay tiri isu kala jirto ilmihii ii kurayaan wadan islaam iigu kurayaan aniga waxay tiri diinteeda si baranooyo oo mataqaana ii siimay yani nolol wanaagsan oo waxaan ku jirnay tiri ما شاء الله تبارك الله ku jirna baa waxay tiri maalmaha kamid ah wadaadkeygii baa waxay tiri uu imaan jiray bay tiri every year buu waxay tiri soo booqan jiray bay tiri marka iskoolada noo xirmaan oo kala sidoo ilmaha time ula qaato buu waxay tiri guriga imaan jiray tiri uu imaan jiray marka wano imaaday tiri markaas odaygii marka socdo ay waxay tiri noo imaaday bay tiri ma sha Allah tabaaraka Allah habibaan ku jirnay tiri odaygii marka anagoo sidii waxay tiri iskaga fiican ma sha Allah shantii cunug ku korsana odaygana waxay tiri noo imaaday baa waxa dhacday bay tiri maalmaha kamid ah gabar waxay tiri ii imaatay tiri marka gabar marka ii imaatay gabadhii marka waa ogto Egypt waxa way dadka habeenkii socdaan dadka badana maalin ma arkaysa laakiin habeenkii bay la adeegtaa habeenkii wax la qabsadaa because maalinta kale may aad u kulashaa marka habeenkii badana most of them habeenkii socdaan ay soo adeegtaan waxay dhahday marka gabadhii baan raacay bay gabadha ii imaatay waan raacay bay tiri marka ilmihiin way saxdeen bay tiri waan baxay bay tiri gabadhii markaan raacay aan gabadhii raacay bay tiri waxay tiri soo noqday bay tiri markaan soo noqday cunug baa marka habeenkii isla habeenkii waa
cunuga marka waxay tiri oo yaraa baa ii baahnaay bay tiri in aan tagargar ilmaha waad aragtay markaas siixiisa qolkooda aad gelisidoo kale ilmo waxaa jira marka walba kuu yira mataqaana oo kuu yira oo ku rabo inaad adala saaxatid ama inaad wax u qabatid marka ana waxay tiri waan imaaday tiri qolkiisa soo galay tiri cunuga ooynaayay cunuga marka wuxuu rabay tiri inuu ila saxa inaa wuxuu diiday tiri kaligiis inuu saxdo sometimes marka waxay tiri cunuga sometimes waxay tiri ii yiraa bay dhahday maadaama marka odaygu ka maqan badan mar waa la saxan jirteen u maray cunug maybe ilmaha oo yar maqta maamooyinku iskala saxdaan marka waxay tiri waa la saxdi bay tiri anna waa daalnaa bay tiri banaankan kusoo daalay den sariirtiisa waxay tiri saa isku kala bixiyay hurda ila tagtay tiri marka iyada dhag meesha hurdadii ugu tagtay tiri was anoo daalna imaaday tiri odaygana waxay tiri qolkiisu jiifay tiri qolkan ugu kale tiri jiif oo macaan oo ugu jirtay tiri oo aad waxay tiri u jiifay tiri marka aan waxay tiri ma kicinin inaan hurdadaas ka qasqasaan diiday jiray marka waxay tiri cunuga ooynay baan xaaga marka u kale laakiin asagoo hurdaayay bay tiri marka dharka waxa iska bixinay wuu jiifay hurda macaan oo hurdaayay tiri waa iska soo baxay tiri ani marka cunugii baa marka ii baahnaa cunugii markaan saa u agseexday hurdadii baa ila tagtay tiri dib u soo kicinay tiri aniga hurdadii markay ila tagtay tiri waagaa nagu baryay tiri sidii marka ilmaha marka waxay aadayeen tiri meel oo ay tin meel ay tin quraan la aadaan iskoolka xiriin ilmaha waxaa loo diraa quraanka inay bartaan meel bay jirtay marka ay aadayeen ilmihii gabadha waxay tiri soo horkacday bay tiri salaadii aan soo kicirnay tiri adiga marka aan soo kacnay bay waxay tiri cunugtaan yar aabaheeda aad u jecleeyay tiri qolkee gashay tiri waxay tiri aaba daadi maba hadlaayo ninkii hooyadeeda kusoo noqotay waxay tiri hooyo aaba waan kicinaya bay tiri laakiin ma dhaqaaqaaya mana hadlaaya ma garanaya bay tiri hooyo waan soo baxay bay tiri markaan dhigay waan soo baxay gurigaan soo galay tiri waan u yeeri bay tiri markaa u yeeri waan gadgadiyey tiri qofkii nafta way ku jirtaa bay tiri laakiin qof totally waxay tiri u dhamaatay oo qof aan waxba dareemaynin way dhahday laakiin nafta markaad inta ka taabatid waxay tiri nafta dhag bay dhahaysaa ayay tiri waan baxay bay tiri ambalaastii waa isku darsanay tiri ambalaastii waxay tiri u yeeriyay dhahday dadkii baa iskugu yeeriyay tiri isbitaal waxaa raadiyay tiri ada waxay tiri ambalaaskii lagu qaaday tiri waa la qaaday tiri isbitaalka la geeyay isbitaalka markii la geeyay waxaa lagu dhahay tiri ninkan stroke baa ku dhacay stroke waxa la dhahayaa ku dhacay marka stroke-gaas ahaaya marka wax uu kala fahmayay male waa baralaata qof aan waxba kala ogeyn waa isbitaalka la geeyay waxaa la kooma galay tiri kooma galay tiri ilmihii marka waxaa tiri waa soo cararaabay tiri ilmihii la joogay tiri ilmihina inaan gurigan u soo cararo waa isbitaal anaa dareemi karaa wallaahi bilaa anaa dareemi karaa waxaa waaye isbitaal story badan ayaan ka hayaa qofka oo mataqaana cunuga hadduu kaa jiran yaho ama qof uu kaa jiran yaho isbitaal is not easy isbitaal is not funny ma fahanteen isbitaalka qofka inta cunuga ama ugu jiro ama adiga weyn aad ugu jirtid waxaa waaye wax easy ma aha haddana ma ugu jirto maamooyinka ama ilmaha haystaan oo guriga ilmo kaaga sii dambeeyaan ma ugu jirto waxay tiri marna guriga usoo ordaabay tiri marna waxay tiri waxaan aadaabay tiri isbitaalkeen taaganay tiri odaygana wuxuu iga galay bay tiri kooma jag bay tiri isbitaalkeen waxaan kasoo ordaabay tiri gurigaan imaaday tiri wixii aan kala habay tiri ilmihii baan kala habeynaa bay tiri waan kula dir saan samee dhawr saan samee war sidaan samee war sidaan yeel war kan yeel markaan kala intaas waxay tiri naarsaas way soo wacay tiri ama dhaqtariinta wixii hadii laga rabo anaa soo wacay tiri telefonkeyga waxay tiri aan siiyay tiri okay waxa la sameyn rabaa sidaas la sameyn rabaa kan waaye sidaas uu marahay xaaladiis waa sidaas intaas maxay tiri soo wacay tiri haddana waan ordaabay tiri isbitaalkeen ordaabay tiri situation kaas baan waxay tiri couple of week ku jiray dhahday orod guriga u soo orod si orod mataqaanaa si orod haddana waxaan ku leeyahay guriga u soo orod haddana isbitaalkii u orod waxay tiri ciddii dhanoo familkii faraxsanaabay tiri yaa familkii faraxsanaabay tiri
waxaan noqoni bay tiri up and down maaragtay up and down marka meesha maxaan ka baranaynaa adduunyadan ha israacin oo nafteeda ugu horeyso adduunyadan sideedaba ha israacinin adduunyada inta aad joogaysid waa wax yar oo kooban waaye wax saa u si dheer ma aha marka yaan iimaanka iska qaadin inta anoo dhisa lahaa dabaqa anoo soo sameyn lahaa anoo inta soo lacag sameyn lahaa anoo inta kan soo sameyn lahaa anoo halkaa ka dhici lahaa anoo ka dhici lahaa tii ilaahayna gooniyay tahay ada taadaad wadatidna waa gooni laakiin tii ilaahayna waa gooni isma dhehayni bay tiri wandhii hadda odageyga intuu imaado haddana halkaas sakaraad kooma isla markaba saa kooma u galaan qofa waxay tiri isku fiicnaadeen tiri asagoo waxay tiri anigu markaan guri ka baxayay tiri caadi u sheekaysanayay tiri qof life u ahay tiri ilmihii ugu tagay tiri oo sheekaysanayaan markaan imaadeen waxay tiri ilmihii saxdeen asagana uu saxdaan u imaaday tiri fahanteen marka nafta lagu sheegay horta sideedaba waa sidaas intaas yani xooga aad haysteen intaas ku jiro wax intaas ku jiro waa marka waxaan rabaa inaan part 1 iyo part 2 ka sameeyo qasadaan because waa long story waa marka hadaan dhaho kulli aan wada sheegaa waxay ugu dheeraanaya video ay ugu dheeraanaya marka gabadhii mataqaanaa halkaas ay waxay noqotay nolosheeda up and down birkee waa ninkii kuu soo shaqaynayay Egypt ana arkay lacagta sida tubada camal hadii aad u shubaynin kuma noolaan kartid meeshaas waxa waaye qarashkeeda qofku waa inuu at least qarashaysto waa qofka oo meeshaas aada marka waxay tiri odaygii hadee waxa noo soo diray oo halkaan ugu hayeen waxay tiri asaga waay tiri in la aniga ma shaqeeyay bay tiri because ilmahaasaan hayay tiri asaga noo soo shaqeynayay odaygana wuxuu ku jiraa bay tiri 3 weeks ama tiri koomo kale tiri jag wuxuu noo soo qaatay tiri hal bil miya in la joogay tiri was shaqa laga rabaa tiri lacag badan aan ugu soo because I know I understand waa dareemi karaa because waxa lagu leeyahay guriga kiradiisii ilmihii iskoolkoodii cuntadoodii waxoodii oo dhan laga rabaa asaa lagu sugaa waa dareemi kartiin dadka halkaas ku nool dareemi karaan yani wax laga sugaaya marka bishu muxuu joogay bay tiri bishu maxaa la raaxaysan markaas uu xiir uu joogay tiri markaas uu noo imaaday tiri waxay ka bacdina waxay tiri tirig soo sii jiray tiri isbitaal ku sii jiray dhahday waaba kan boo waxa la geliyay tiri koomay ku jiray dhahday waa qof aan dhaqaaqin oo mashiintaas waxay tiri u shaqeynaysa bay tiri xoog uu lahaa bay tiri caafimaad uu lahaa tiri qof oo jirjirida xataa ma ahayn tiri oo yani in healthigiisa waxay tiri yani qof health lagu sheekay kara u haay tiri qof oo xataa sokor lahayn oo waxa ma lahayn bay tiri macaan ma lahayn dikar ma lahayn wax aad jir oo wada ninkaas lahaa ma jirinay tiri ma fahanteen strogan waa iska soo buudaale ma fahanteen waan ilaahay amarkiis waayo marka waxa dhacday waxay tiri sidan isbitaalka halkaas ugu waxay tiri maalintaas bay tiri odaygayga isbitaalka la geliyay nolosheedu waa isbedeshay bay tiri nolosha aan ku nooleen way isbedeshay bay tiri noloshaan ku nooleen that day waxay tiri ambalaaska la saaray aan nolosha aan ku nooleen bay tiri aniga ilmahayga ay tiri baan isbedelni bay tiri insha Allah qaybta kala marka gabadhaas nolosha kala ee cusubneed aadana ay gashay because noloshii hore oo adiga uu joogo saasay ahayd noloshii dambeedna oo mataqaanaa oo adiga koomihii ka galay iyo wixii u dambeeyay cidii mataqaanaa oo wadankoodii ka tageen oo halkaas tageen oo rabeen ilmihii inay diinta bartaan ayadana diinta baranaysay yani and they don't even plan inay soo noqdaan ma plan garaysanin oo balaankooda ma ahayn waxay halkaas inay iska degnaato oo asagana uu imaado oo lacagtii waxay u soo diro oo halkaas waxay rabtay iska joogto ayadana diinteeda ay barata ayaa balaankeeda ahaa laakiin tii ilaahay balaankiisu gooni waa tii ilaahay ma ogati tii ilaahay meel bay u taalaa marka intii qaybtii marka cidaas waxa u dambeeyay meeshii ay ku dambeeyeen marka odaygii koomaha ku jiray aabihii meeshii uu u dambeeyay
qaybta labaad ayaa insha allah iga dhageysan doontiin. Like ha iga iloobiina shareka iyo ha iga iloobiina subscribe-ka. aad ayaan idin salaamay. I love you all. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.